cambuurka Samiiro. Samiiro gacanta hooyadeeda si fiican ay u qabsatay markii ay jidka goynayeen sida u aadaan dukaamada. Ciidaa soo dhaweed. Samiiro aad u jecleed inay hooyadeeda dukaanka u raacdo. Waqtigan waa la gaaray sida u doorato cambuurka ciida. Samiiro dukaamada waxa ay haastaan ee banaanka ka fiirinaysay. Hooyo fiiri. Samiiro dhahday iyadoo cambuurka farta ku taagayso. Hooyadeedan way jeesatay sida u aragto cambuurka qurux badan. Samiiro iyo hooyadeeda dukaankii isla galeen. Cambuurkana si fiican ay u fiiriyeen. Hooyo aad u qurxan yahay cambuurkaneeti. Saasay dhahday iyadoo goodka cambuurka taawanayso iyo bilqbilqadiisana fiirinayso. Samiiro hooyadeeda dukaanleyda u tagtay maxayna dhahday ma baraway karnaa cambuurka qiyaasta 7 haa ana qiyaastay 7 waaye maxaa u baahnaan lahay cambuur oo qiyaasta 7 haa haye waa ku soo qaadaa dukaanleyda dhahday ciid ahaan ma gadanaysaa haa Samiiro dhahday iyadoo faraxsan ciid ahaan rabaa inuu gashto qoftii dukaanka ka shaqeynaysay gadaalay gashay sida u raadiso qiyaasta oo Samiiro rabto. Samiiro iyadoo faraxsan ee ciyaartay maxayna ku fikiraysay cambuurka markay gashato sidoo ku soo bixi lahaay. Maxay kale ku fikiraysay taakada ee ku xir lahayd cambuurka. Wax yar kadibna maxay aragtay kabo oo cambuurkeedan u eg. Hooyo fiiri kawahaneeti cambuurkeeyo eg yahay. Aaday isku qalmaan. Samiiro wax yar sabar lahaa horta ku cambuurka baraweyno maanto hooyadeeda dhahday qoftii dukaanka ka shaqeynaysay soo baxday waa ka xumahay qiyaasta number 7 ma haysani. Samiiro aad u xumaatay ileenana ka imaaday cambuur kalma imaaraan mar dhow hooyadeeda weydiisay runtii ma ogi hadii rawo imaan kara laakiin ma ogi hadii oo ciida ka hor laga soo gaari karo. qoftii dukaanka shaqeynaysay dhahday ana cambuurkana rabay iyadoo oynaysay dhahday ciida aad ku fiicnaa lahaay dukaamaha kala fiiri karnaa. Samiiro wajigeeda ruuxday may hooy marawi cambuurka la guriga la aadno. hooyadeed maxay go'aansatay inay jalaato u soo gado laakiin xataa jalaatada ma ka faraxsiinin. Samiiro aad u xanaaqsaneed jidkii intii loo soo socday xataa qof dhan ma u hadleen. Cunto marawin inay cunto cambuurka le maanto dhan ka fikiraysay. waqtiga jiifka markii la gaaray Samiiro hooyadeed sheeko u akhrisay. waa ogahay inay xanaaqsantahay cambuurka inay la waayay maanta laakiin marmar inaa sabar lahaana waaye mar walba ma heli karno wixii rabno isku waqtigii. ilaahay ma weydiisan karaa inuu caawiyo cambuurka saa u helo hooyadeeda weydiisay. haa gabadheeda mar walba ilaahay waa weydiisan kartaa laakiin isku waqtina inaa sabar lahaatid waaye. Samiiro hooyadeeda macay siisay soo bariyeen dhahday 3 maalin camal ka soo wareegatay. Samiirana waxay isku dayaysay inay sabarto laakiin dib uu ku ahaay. markay is dhahday cambuur oo ciid u gashanays ma heli rabtid telefoonka soo yeeray. hooyadeedan way qabatay wax badan way maqli waysay laakiin waxay maqashay hooyadeed iyadoo dhahayso haa qiyaas number 7 sax waaye hooyo Samiiro hooyadeeda u soo oraday. hooyadeeda dhahday wax yar sabar dukaanka miyaa. Samiiro dhahday hooyadeeda way qosashay wajigan way ruuxday. Samiiro way warwareegsatay yaanyuurteedana macay siisay. kaali hooyadeeda dhahday cambuurka dukaanka la Kenya u maleynaa ayuu dharka isku soo bedel. Samiiro way sii ciyaartay alxamdulillaah dheh hooyadeeda dhahday waxaa seetiya dhacay markii sabar lahaano. alxamdulillaah Samiiro bilaawday inay heesto ciidii u fiicneed ku soo bixi rabtaa iyadoo ordaysay dhahday marmar dhibanoo tahay inaan sabarno markii wax rabno laakiin waxyaasha fiican maxay dhacay markii